caafimaadka fariintiisa oo faaruur yahay salaantu ku faraal tahay farxad ruux kuugu yimid ha u fidin gacmaha كورونا laga fajaacay fidma weeyaan adduunka ku faafay ee ficil yeelo bulshooy feejignow baan ku idhi fayraskiyo korona laga fajaacay fidma weeyaan adduunka ku faafay ee ficil yeelo bulshooy feejignow baan ku idhi kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno xaaladda coronaviruska ama cudurka dilaaga ah ee caabuqa ku baahay adduunka oo dhan waxaanu ku sugannahay magaalada Boosaaso ee deegaanka Puntland waxaan maantay halkan ila jooga mas'uuliyiin jooga gobolka Puntland gaar ahaan bari Boosaaso waxaan rabaa inaan su'aal yar ka weydiiyo Maxamuud Shire Ciid oo ah Sheekh Ciid oo ah agaasimaha guud ee hay'adda Migration Response waxaan rabaa in aan mudane ku weydiiyo marka ugu horeysa bal nooga waran saameynta coronavirus ee Boosaaso su'aasha ay weydiisay arrintan corona pandemic oo saameynta ku leeyahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland waxaan oran karaa waxaan waa global problem oo la socotaan oo mushkilad adduunka la soo diray oo waxayna garanayeen oo phenomena ah oo oranka runtii virus ilma qabata ah oo yaana aadiyaabayso inta uu leeyahay marka la fiiriyo maalin baan dhageysanay niman aqoon-yahan oo diameterkiisa waxaan la yaabay waxaan 0.000 intaas aan la yaabay waliba qaarkood ilaa mataqaana waa aan liifin waxaan noolayn oo haddana nool si u saameyn nolosha adduunka oo mataqaana caalamka maanta looga qeylinayo saameynta ku leeyahay bulshada Puntland waxa weeye taa adduunka ku leeyahay oo aan uga sii maxay nugulnahay inagoo dhacay marka la eego dad aad week very week meel badan uga ah mataqaana dhaqaale ahaan wacyi ahaan aqoon ahaan facility ahaan caafimaad kulliba waxyaalaha uu saameynta ku yeeshay waxa kamid ah soo inagu been ugu yeeshay kala hore waa ta ogeedeen xataa bisheedii markii la gaaray ilaa lixaad iskuulada waa xirmeen maxdiyada institutionada waxbarashada jaamacadaha meel kasta dhaqdhaqaaqa socodkii flightski wixii oo dhan waxyaalaha ugu daran waxa kamid ah arday dhan oo mataqaan foor ahayd ama fasalada sideedaad ahayd mataqaan centralizeedka oo imtixaanada dhexe ah oo laga yaabo inay qaarkood aanay qaadan waxaan oran karaa rubuc kamida syllabuska manhajkii sanadeedkii fasalkooda imtixaan centralized oo sugayo sistemay fara badan oo electronic marka Puntland waliba mataqaan guulaha ka gaartay wasaaradda waxbarashada iyo UNICEF oo marka keenay system mataqaana electronic oo online ardaydu xogaa kala socon karto laakiin ana hawo iskala socotaan mataqaana waxbarasho waa class waa tahay waxaan rabaa agaasime inaan ku weydiiyo maxaad hadda aad isleedahay bulshada waa lagu badbaadin karaa xanuunka la tacaada dhacaysa oo xaaladaha aad ka waranta ay jiraan aadna loogu baahan yahay in coronaviruska dadku kala fogaadaan ilaa iyo 6 feet loo baahan yahay qofka coronaviruska uu ku dhaco in karantiin la geliyo in bulshada laga fogeeyo si uusan xanuunka u sii baahan cudurkan dilaaga dadkiina saad sheegtay ay isku dhex jiraan qofkii ama la quraan saarayo boqolaal meelood oo la isku imaanay jirto isbitaalada aysan u diyaarsanayn xaaladda halista ah ee noocaas maxad dhinaca dawladda iyo shacabka ku leedahay aad baad u mahadsan tahay mar labaad mustaxad runtii aan soo koobay waxaan oran lahaa talooyinka aan bixin karo waxa kamid ah horta meesha quraan saarka oo aad ku dhigaysaan anigu xadiis baan anigu wuxuu ku leeyahay mataqaana istaan billahi وحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز واحد doontaa ku dadaasha wax ku anfacaya ilaah tala saarso hana caajisin taamana waxa weeyaan mataqaana ilaahay imsibar in lagu xiraado aan qaba quraanka iyo sunna fara badan adkaarka nabiga ka sugnaatay inuu yahay waxyaalo ugu fara badan hadda mataqaana lagu daaweyn karo taas waa taas quraanka waxaan ka hadlaynaa anagu waxaan ka hadlaynaa saararka cusub ee mingiska goobaha kala shifooyinka oo muddo lagu baabashay oo mataqaana diiniyana meel haysto aan la garanayn waxna commercial laga dhigay
quraanka caadiga iyo mata ilaahay in la baryo masaajid in laga qunuudo rabbi dadka in loo baryo la isu soo baxo ilaahay loo tadarruco waxaas waa waajib waana wax fiican ilaahay baan loo arfa fir ila allah way taas waa taas wacyigelinta waxa kamid ah anigu waxaan qabaa in quraanka la akhriso waxa kamid ah distancing waxa la sameeyo la kala fogaado xadiiska hadda aan soo isticmaalay wuxuu sheegayaa in rabbi la tala saarsado lana dadaalo la taxadaro awareness oo la sameeyo lana aan daalin oo arin tikraar lagu soo celceliyo sidii Sambir hadda aan ka hadlayo kale hore wacyigelintu heerka joogtay maanta aan joogin marka waxa moodaa xadiiska typical in ay yahay wasiilada lagu wajihi karo sida laga fahmaayo waxaan kala oran lahaa distancing ka dadka ilaahay loo fogfogeeyo haday kala fayso ma garanayo hadda facility-ga fasaladana qaar baa 80 arday fasal ay galaan iskuulada qaar baa 46 baa ugu yar anigu hadda halkaas ma garan karo imtixaankana waa dhow yahay waliba dadka saaxiibayaalka waan ma oran karo maanta qana ciyaalka iskuulka laga joojiyo ama dib looga dhigo fasal dhantaa ku baabsan dugsiga ma oran karo ana way saxal baa loo baahan yahay distancing waa kamid in nadaafada lagu dadaalo rabbi in la isu dhiibo in ma taqaana meelaha muhiimka ah sida boosaska waxa nin dhakhtar xal ii sheegay waxyaalaha qaybta way ka ciyaaraan inta waxa kamid ah xagaabaha هذا واحد قال لي أبيش حاجة بح بوصاص ولا غيابه يعني epidemic stage إنه جوجو بقول ذلك كحاجة بح يبقى هذه ميلي بعديها واللي بقى قاعد يقول نقول كل كهرباء بقى ليه ومشكلة هاجن بل لو تحضر مرة أنا قاعد حاسس كي قبوا هلو يا بقول كم ما أوران كرو فاسيلتي فربنا مع دولة سبين كردات كهل قال جوجر ما جرت ميجي يا لجارسينيا كورونا فيروس ميجي ولا جارسينيا توليك ولا جارسينيا وعلى ما قالك وبنا ولا جتجايا هذا وحنا أنا جوا كذا كان وقول عيب بوس قرر لجيه قرر كل أنتي كوا كان دق دق لقى سوعشي ولا يبوس صارهم وحصل سبين جاري كاس عد مدلل صار وحلا يعني كانوا عاد قرر سوعشي إنه لو توقف جاري ما تغير إنه هلا صار هذا كلمة ذاتك نحيا وحنا واسك هرجبوا هرجب قف مديل كرام هرجب ما هو حاني ومصيبة وهي الضامن العمواس كي كل حلقي عمر بن الخطاب الشام وكلات الإسلام كل عقلته وهي عمر نقضي عمر مع الرئيس هذا نعم بيجري أفير من قدر الله لا قدر الله قدرت الله وعلي قدرت الله كعرية وأصحابي إلى قرآن كأمر عمر بن الخطاب قرآن كاسقاطي تحضر إلى هذا إن ما تغانا وتأكد ما تغانا وحلا نكرر الصلاة دي قار كودي إن جماعتك اللي كتكدوا وفرل كها بل يقولي إنه كتكدوا صلوا على ور حالكم مركا أردنا أنا وحن قبائل متغير هذا حتى إنه كل في مساجد إن لا يري دتك أمر ديستانس الله سبحانه ما أنا قرن ما هي هذا دينيا مساجد كلا دور كانوا لبوا أوران كرو لكن هذه حتى لقى مار مكرو صلاة قار كوديو سي تراويح هذه حلقة قبل عمل الله هذيو waxay ka mid tahay wacyigelinta waxyaalaha ku talay mataqaan in laga qaato toobahalka waa tahay agaasimi waa mahadsan tahay waa soo koobaynaa waxa aan ugu dambeysaan ku weydiinaya waxa weeye dhanka dawladda ma jiraan wax restrictions ah oo la sameeyay ilaa iyo hadda gaar ahaan hadda magaalada Boosaaso baan ka hadlaynaa oo dadka lagu xakamaynayo isu socodka dadka maadaama xanuunkan halista maalin walba dad badan boqolaal qof ay u dhimanayso macnaha ma jirtaa wax noocaas إلى حد ogaalkayga ma jirto laakiin waxaan ugu cudurdaarayaa regional level dawladda ma imboos garan karto arrin gobolka bari ku saabsan kaliya hadda maamulka gobolka bari iyo hay'adda amniga ma amar kuma bixin karaan Puntland oo dhan baa waxay maamul goboleed qayb Soomaaliya kamid ah marka waa in list kor ka timaada mataqaana wasaaradii amniga iyo mataqaana caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha gudaha laakiin si iyagu bando dadku siyaalo badan baa loo fahmaya maciishadana aad u hooseysa boqolkiiba 90 naga dakhligan hal dollar waa ka hooseeya dadka guriga wax ku siinmayso guriga jooga laba oran karo dawladdu waa weyn baa dadka biili waayay laakiin kulli in wasiir anigu waxaan aad ugu amaanay shalay waxa la sheegay taliye Xuseen Maxamuud Ali Maxamuud inuu u yeeray taliye qaybtu inuu u yeeray nin dadkan cusub oo rujayaasha la baxo madawareerinaya ah oo yiri mataqaya amarka ku siiyay oo la soo magaciisay waa la sheegay maanta in la joojiyaan malaynaya aad baan arintaas Xuseen ugu mahadcelinaya waxaan ku boorinayaa in talaabada la qaado kaas kaliya aan la beegsanay in ala inta rujayaal iyo dadka umada mataqana halaagayo meelaha goorka isugu keenaya in talaabo laga qaado inta corona jiro iyo kadib anigu waa fikirka taas qabo arrin halis weeye marka ilaa hadda inta wax dhaafsan hada weeyno dawladdu mataqaana regional level ay qabatay garan maayo kuna eedi maayo hada waxa weeye wax kor laga soo ama inboos garay wali oo noocaas in la qaado dhamaan magaalada Puntland wala dawladda kama soo bixin aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa agaasimaha guud ee hay'adda MRC Maxamuud Sheekh Ciid oo inooga waramayay saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay magaalada Boosaaso iyo guud ahaan xaaladda hadda oo cudurkaasi ku sugan yahay deegaankan iyo xaalado badan oo isku jira xanuunka coronavirus inuu sii siyaadayo dadka isbitaalada loo geynayo dadka dhimanaya dadka oxygen la'aanta ah macnaha xaaladda xanuunku aad bay u sii kordhaysay maxaad kala socotaa wasiir
wasiirkii hore. bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad baa u mahadsan tahay runtii waa arrin wanaagsan in laga hadlo dhibaatada covid-19 runtii covid-19 waa cudur wadanka iyo kusoo kordha caalamka iyo Soomaaliya kusoo kordhay dhibaatadiisana wata runtii haddaan laga foojignaan ama wacyigelin fiican loo sameyn ama qof walba isxilqaaminna haddii dadkeenni buu leynayaa ciroolo iyo caamana u aabiyeeli maaye ninkii ilaahay u qadaray budilaya marka laakiin inaga waxa ina saaran inaan dadaalo annaga waxaana saaran inaan maartay talooyinka aan qaadano dhakhaatiirta iyo dadka arinta ku takhasusay ay nagula talinayaan inaan qaadano runtii cudurkaani waa cudur annaga kaliya nagu kooban ama reer Soomaaliya ama reer Puntland ama reer Boosaaso cudur kaliya u gaar u ah maaha laakiin waa cudur caamiya cudur Soomaali meel walba ay joogto ay ogtahay way cudur qof walba og yahay way reer Boosaaso waxa waaye waxaan kula talinaynaa iyo guud ahaan reer Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya oo dhan in maaragtay talooyinka la qaato in la kala fogaado in maaragtay nin walbi Ilaahay baa wax seef gareeyo wax ilaaliya nin walbi suu naftiisa ku seef gareyn lahaa ama naftiisa ugu dadaali lahaa inuu naftiisa ugu dadaalo si cudurkaan aan uga badbaadno Ilaahay baa wax badbaadiya laakiin Ilaahayna aan ka barino inaan badbaadno Ilaahay aan ka barino runtii cirooliya caamana cudurkaan waa dilaya qof waa aabiyeelayana ma jirto cudur waxa weeye soo dhacay weeye dhibaatadiisana wata runtii Soomaaliya waxa laga yaabaa xaaladda inay iskaga jirto oxygen yaraan Puntland Boosaaso oxygenku inuu ku yar yahay baa laga yaabaa in facility-ga kale ay ku yar yihiin baa laga yaabaa dawladuna waxa weeye waa inay dadaashaa oo dhankeeda ka dadaashaa shacabka iyada loo doortay iyada mas'uuliyadu saaran tahay dhanka kale shacabkuna waa inuu dadaalaa dawladda kaliya mas'uuliyada ma saaree shacabkuna waa inuu dadaalaayo gacmaha dhaqdaa sanitation-ka isticmaalaa afka xirtaa waxa weeye nin walbi doorka kaga aadan shacab iyo dawlad nin walbi door kaga aadan waa inuu muujiyaa haddii dayacaad ay timaado ama labada dhinac uu ka yimaado dayacaad dadkii waa dayacaadaasa loo dhimanayaa marka waxaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba aan dadaalo aan isku tashanno nin walbi dadka xanuunsan waa sunni in la booqdo laakiin markaad booqanayso waa in afku u xiraadaa waa in sanitation meesha yaala waa inaad haddaad booqanayso waa inaad cudurkan ku tala gashaa inaad soo qaadi karto Ilaahay baa badbaado leh laakiin inaad soo qaadi karto waa inaad ku tala gashaa waa inaad qof xanuunsan hadaad booqanayso waa inaad ku tala gashaa hadii kalena aysan ahayna waa inaad ka istaagtaa laakiin waa sunni in qofka la booqdo laakiin xaaladan oo kale waxa weeye waa xaalad Ilaahay noo baneeyay weeye ma waxyaalaha jermiska dilay waa inaad isticmaashaa waa in afka ku xiraada marka saasaan ku talinayaa sacaadatul wasiir waxaan rabaa su'aashii ugu dambeysay inaan ku weydiiyo sidaan hadda waraysiga ka horeeyay ama agaasimaha guud markaan su'aasha weydiinay noo sheegay gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Bari waa kamid dadka hadda xaaladiisa lala tacaalayo waxaa jira in uu soo kordhayo dad badan oo xanuunka la tacaalaya oo ay sida la sheegay oxygen la'aana waxaa jira dhakhaatiir badan oo goboladan Soomaaliyeed oo adduunka daafiisa ku nool ama qurba joog ama dad gobolka u dhasho gobolka soo ganacsata ama arrimaha bulshada ka shaqeeya maxaa tala ah oo aad ugu dambeyn siinaysaa ama aad ka tilmaami kartaa baahiyaha jira bismillah runtii dadku waxa weeye horta walaalkan Allah caafiyo gudoomiyaha gobolka la yiri waa xanuunsan yahay Allah caafiyo Ilaahay caafimaad kale runtii ganacsatada iyo dadka maaragtay Soomaali wuxuu galo oo waxgalka ah dadka saaxiibada aqliga ah cudurkan waa cudur Soomaali halakaynaya ama caalamka dhan weerar ku ah waxa loo baahan yahay in cududa la isku geeyo in aqliga la isku geeyo in maaragtay shilinka ninku hayo oo maanta uusan horo hadii qoys walba oo Soomaaliyeed waxa laga yaabaa in maaragtay uu halakayo ama soo gaaro marka intuusan maaragtay xumaan wacyigelintana waa in la sii badiyaa idinku wariyaasha waa inaad dadka u sheegtaan in dadkaan kala fogaadaan dadkaan afxirka qaataan sanitizerska waa in la isticmaalaa qofku waa inuu saacad kadib ama 2 saac kadib waa inuu faradhaqa joogtay maskaxda ku haya inuu faradhaqdo hadaba daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ka diyaarinayno magaalada Boosaaso anigoo Maxamed Yuusuf Farsamo Awdoon ah waxaan sidaad hore u daawanayseen barnaamijka hore ugu
soo wareysanay wasiirkii hore ee wasiir dawladii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Yuusuf soo kale waxaan soo wareysanay agaasimihii guud ee hay'adda MRC hadda waxa ila jooga nin dhalinyaro ah oo kamid ah aqoon-yahaninta gobolka Bari ama Boosaaso oo la yiraahdo magacaaga noo sheego بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed cabdisalaan ma sha Allah waana aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa barnaamijkan wadaan oo runtii loo baahan yahay waqtigii ku haboonaa ku soo aaday waxa muhiim ah in ay dadku fahmaan macnaha ay coronavirus iyo cudurkan waxa uu yahay iyo maartay in badan baa laga hadlay laakiin anigu waxaan aaminsanahay waxa ugu muhiimsan inay tahay wacyigelinta oo adduunka hadda wadamada uu bahalkan maartay dhibaatada xoog leh oo ka soo bilowday jeen oo kale waxa ugu muhiimsan ay meel ku gaareen waxay ahayd wacyigelin dadkii la fahamsiiyay oo dad khubaro ah oo aqoon u leh dadkan wax la fahamsiiyo ay fahamsiiyeen inaga hadda waxa weeyaan wacyigelintu aad bay u yar tahay waxa kale oo aad u yar fahamka dadku ay ka qabaan bahalakan inay cudurrada caadiga hargabkii iyo isagii dadku kala saar la yihiin in maartay qofku haduu xanuunsado qof walba ehelkiisa soo booqanayo dadkii ay qofkii soo kortuuminayaan marka doorka wacyigelinta baa ka maqan anu saadaan isleeyahay marka ma sha Allah barnaamijkan waa barnaamij aad u muhiim ah weeye waxaan leenahay kulay hadee dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa mid dadka reer Puntland runtii waxa wanaagsan inay arrimahaas maartay iska caawiyaan ninkii tala bixinaya ninkii si kale wax uga geysan kara waliba dadka qurba joogto wax fahamsan oo dawladaha horumar jooga oo wax badan oo iyaga ruuxadooda inay inkastoo ay dhibahaysato laakiin dadka dhaqaale ahaan iyo wacyigelin ahaanba labadaba ku dhaamaan marka ankee dadka coronavirus ku dhacay oo maartay hore u soo maray in dadka dib uga wacyigelinaan maartay maadaama cudurka iyagu soo arkeen oo soo mareen waa wax aad u qurux badan weeye marka ma sha Allah aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa kolada dawladda awoodeedu way iska yartahay laakiin dadaalku ma xuma marka ma sha Allah in hadda anagu tiro rasmi ma hayno laakiin waxa la sheegay in dad u dhimanayaan waanan aragnay isbitaalada dad badan ay soo buux dhaafiyeen sidaan horay dad badan u soo weydiinana dadku wali sida caadiga ah bay isugu dhex jiraan ma isleedahay qof xanuunka coronavirus qaba ayaa dhacday in dad badan la dhex geeyo ama dad badan u dhex tago oo xanuunkii uu faafo ma isleedahay in loo baahan yahay in sidaad horeba u sheegtay in la sameeyo wuxuun restrictions ah oo lagu xakameynayo wallahi umada xakamaynta coronavirusku dadka wax ku oolka ee caafimaadka maartay ku shaqo leh iyo dawladda iyo dadka shacabka inta qof kasta oo wax garanaya oo goobtaas ku nool ama Soomaalida ah kamid ah ama hadda dadka mandaqadan ku nool Puntland kamid ah wixii uu ku dhaamo oo wacyigelin in dadka wacyigeliyo aad bay qurux badan tahay marka dhibaatada ugu daran hadda haysata waxa weeyaan qofkii markuu xanuunsado oo xanuunkii ku dhaco hooyadii walaalihii ehelkii qaraabadii qofkii way soo booqanayaan waxa leeyihiin qofkayga baa naga xanuunsan maartay aan soo booqanayna waxyaalahan maqalay anu ma arkin waxa kamid ahaa qof xanuunsado coronavirus ku dhacay oo dadkiisa laga cilaayo isbitaalka leeyahay ninka ha u tagin ilaahay hooyadiisanahay habaryartiisanahay eedadiisanahay caanaan wada hadhow yaani layma soo booqan buu qofkii dhigi kara haduu caafimaado waxa kan ilaah baa keenay laakiin waa iska soo booqanayna marka arrimahaas dadka ma wacyi gashana runtii marka sidaas way dhibaatooyinka ugu badan oo jira taas way taas loo baahan inaga wacyi geliyo dadka oo arinta ugu muhiimsan taas way dadku faham bay iska haysan muhiim ah laakiin waxay moodayaan xanuunada caadiga ah dadka la soo booqan jiray oo kale bay u haystaan oo sahla walka waxa la sheegay in rag kamid ah in ku dhacay ama xaaladda caafimaad hadda lala tacaalayo sidoo kale waxa la sheegay dhakhaatiir caan ah oo gobolka ah iyo hay'adaha caafimaadka ugu sareeya rag madax ka ah in iyaga laftigooda xaalad adag ku sugan yihiin hadda oo xanuun coronavirus laga helay shacabkii usaad sheegtay way soo booqanayaan oo isbitaalkii baa la iskugu tagayaa dadka qaarkood wadaadda loo soo kaxaynaya iyagoo xanuunsan oo quraan saar baa la saaraya waxa soo dhan way jiraan dabcan waxaan dareemi karaa wacyiga inay tahay xaaladiisa maxaad adigu dhalinyaro ahaan gabagabadii dadka aqoonta khaaska u leh ee heli kara talaalka inay soo gaarsiiyaan Puntland ama gaar ahaan gobolkan talaalka xanuunkaas lagula tacaalay soo gaarsiin kara ama ku caawin kara qalab maaragtay sida hand sanitizerska ama maxaan ku raaqalabaadka lagu protect gareyn karo qofka coronavirus ka qaba ama waxyaalaha noocaas
ama adeegyada loo fidin karo qofka xanuunka haleelay dadka awoodda u leh inay waxyaalaha soo gaarsiiyaan Puntland maxaad ugu baaqaysaa dadka reer Puntland oo adduunka dacaladiisa ku nool ama wadanka ha joogaan oo Ilaahay wax siiyay waxaan tala bixin ku siin lahaa inay dadkooda caawiyaan oo ay la garab istaagaan wixii markaas tabartooda ah oo lagu qabanayo baahi hadii dhaqaale jiro yani waxa fududaanaysa in qofkii baahidiisa laga taxadaro ama meel gooniyo intii loo sameeyo dadka lagu karantiilo oo magaalada Boosaaso hadda ka baxsan oo kale oo magaalooyinka weyn Puntland meel ka baxsan oo dadkii lagu baalkay dawladda waxaan maamulka yar waa ka awood weynta dawladii waaweynaa baa qeynaya marka laakiin hadii waxaan dadka jaaliyadu ay sameeyaan qofkii waxaan waxba ku ahayn dadkiina wax u ah baa jira hadii wixii la isu soo aruuriyo oo maskax fayow la isugu soo aruuriyo oo cid mas'uuliyadda qaada lagu soo hagaajiyo oo qorshe wanaagsan laga sameeyo waxaan aaminsanahay mashruuc weyn oo wax ku oolo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Puntland wax ku oolo ah inuu noqonayo fikradaasna waa fikrad dadka ka maqan waana arrin aad muhiim u ah marka idinkiina barnaamijka wada ruuxadiina waxaan idin kula talin lahaa maadaama aad dhalinyartihiin oo aad garateen inaad wareysataan ama dadka wax ku oolka aad wareysataan inaad barnaamijkaas idinka ruuxadiinu aad ka dhabaysaan oo u istaagtaan dadkiina dadka qurba joogtana u istaagaan dadkooda si loo caawiyo oo wax loo taro oo markaas qorshayaal waaweyn loogu sameeyo oo dadka macna waxa laga yaabaa qofka hadeer qofka qurba joogta wax yar aan waxba ku ahayn ama aan isaga wax u tarayn hadii marka la soo ururiyo dad badan oo halkan jooga inay wax tar u ahaan lahayd baa laga yaabaa example tusaale yar baan soo qaadanaya marka meel hoola oo weyn oo magaalada ka baxsan dadka loo sameeyo ama dhismo caadi ahayn laakiin balbala oo kala oo dadka coronavirus fayraska qaba space la isu jirsiyo oo maartay meel hawo fiican haamihii yaan la gaarin halkaas marka loogu talagalo Ilaahay wuxuu caafimaadin laga soo saaro wixii markaas karantiin u baahan magaalada laga dhex saaro halkaas lagu sameeyo waa arintaas tan kowaad ka dhigamaan indii la waa taladeeda gaarka ah oo aan leeyahay waana wax aad u fudud oo maartay hadii la bilaabo la dhameystiri karo cidda bilowdana ajir bay keenaysaa cidda ka qayb qaadata ajir bay keenaysaa cidda wax lagu aamino oo barnaamijka wadana ajir bay keenaysaa marka barnaamijka la qabto laftigiisana dad badan oo islaam oo caalamka ku nool ayaa waxay u noqonaysaa tusaale waxay noqonaysaa dhiirigelin in wixii dadku ay soo dhiibteen wax lagu qabtay baan cadaanaysa marka runtii waxaan jeclahay in arintaas la bilaabo oo laga qayb qaato oo aan la hagran anaga wadanka joognaa bilaabayna dadka qurba joogtana inay bilaabaan aad iyo aad baan rajaynaynaa dad waana dad aad wanaagsan dadka Soomaali soo samata bixiye weeye dadka heerka maanta dadka soo gaarsiiye weeye laakiin waxay u baahan tahay in dadka wax loo sheego wax la fahamsiyo oo iyaga ruuxadooda loo sheego in walaalahooda ay sidaa yihiin waxay tari karaan ay taraan marka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin